بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janalkeen gacmo furan iyo qalbi saafi ah. waa idin soo dhaweynaya Soomaali weyn, waan idin salaamaya meel walba joogtaan. maalin wanaagsan. maanta waxaa ka hadlaynaa farqiga u dhexeeya guurka aad ku guursatid caatifadaada iyo emotionkaaga iyo guurka aad ku guursatid caqligaaga. in dareenkaaga oo kaliya aad ku guursatid iyo in caqligaaga aad ku guursatid farqi ayaa u dhexeeya. farqiga u dhexeeya waxaa waaye hadhow soo ifbaxaya. guurka ay tahay qofka kaliya aniga dareen iyo shahwo ayaa i wado waa guursanaya, natiijadiisa waa aragnaa sooma waa ku jeclahay la-aantaa ma noolaan karo. wax kale oo lagu saleeyay haba yaraatee ma lahan. jaceylkayga u dhimanaya. wax kale haddii aad weydiisid qofkii aad tiraahid qofkan adi aad jeceshahay mas-uuliyadaada ma qaadi karaa, guri ma kuu samayn karaa, beri caruura imaanaya caruurta mas-uuliyadeeda ma qaadi karaa, adiga si awood ma u leedahay caruurtaadii inaad dhexda xiratid, aad ma qaadi kartaa mas-uuliyadoodii. qofka indhahootaa taagaa su-aalaha runta markaa weydiisid ma kuu jawaabi karo. laano waxaa waaye guurkaaseeti waxaa lagu saleeyay dareen ayuu ku salaysan yahay. caqligii waxaa waaye wuu ka fogyahay, aada ugu fogyahay, mana laga fikirin beri waxa imaan doono. iyo qofka naftirkiisa si caqliyeysan si cilmiyeysan xataa waxaa waaye qofkii ma loo kuurgalin. kaliya waxaa waaye aniga waa jeclahay qofkan la-aantiis ma noolaan karo. natiijada ka imaanaysa waxaa waaye maalin walbo inaad ooysid, maalin walbo inaad qaylisid, muddo yar kadib inaad tiraahid aniga ninkii saano u yeelay, aniga waxa qaylinaya gabdhaha waa sama. hadda ma arkaysid wiil qaylinaa, ma arkaysid waa wiilasha in badan waxaa waaye anaga dareenkeena, anaga dumar haddaan nahay caatifadeena ayaa ku socona in badan caqliga meelaa soo dhiganaa mararka qaar. marka haddaa gabar tahay iyo haddaa wiil tahayba muhiimad waa inaad horta caqli aad ku guursatid, oo qofka aad guursanaysid aad caqli aad ku salaysid. aad qofkan intee isla gaari karnaa horta inaad qalin iyo buug aad soo qaadatid. qofkan intee in laga isla gaari karnaa. qofkan guri haddaan sameyno nafteyda ma ku aamini karaa, gurigiisii ma awood ma u leeyahay. qofka waa inaad horta baaritaan aad samaysid, aad baartid. markaas kadib waxaa waaye aad ogaatid qofkii sax hadday kuusoo baxdo su-aalaha isweydiinaysid oo jawaabahooda okay kuusoo baxaan, waxaa ogaanaysaa wixii gadaal ka yimaado inay yihiin wax awoodaada ka baxsan oo ilaahay amarkiisa wax way dhici karaan. laakiin adiga aad caqligaagii aad ku fikirtid sababta aad ugu guursanaysid caqliga oo caatifada kaligeeda aadan ku guursanaynin. caatifadii way soconaya oo dareenkii waa soconaa, laakiin caqligii waa inuu ku hogaamiyo go-aan walba oo weyn markaa qaadanaysid oo noloshaada caqliga lagu saleeyaa. waa laga tagaa qofkan maalina waxaas ii sameeyey, maalina waxaas ii sameysay, qofkan waa i jecel yahay, qofkan la-aantiis ma nool. waxaas waa in horta meel aad soo dhigatid. haddaadan baranin hadda waqtiga iyo waayaha ku bari doon wax barbaleen ma lahan. waxaa waaye dunida maxay u joogtaa duruus, waa in casharo in aad qaadatid oo casharadaas aad baratid waay. hadda waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ku dhahaan may macquul maaha, qofaa aniga aan jeclahay saan ma dhihi karo, qofaa aniga aan jeclaha waxaan ma dhihi karo. way dhacdaa wayna dhacaysaa, laakiin waqtiga iyo waayaha ayaa ku iftiimin doono. su-aalaha aan kuleeyahay weydiiya qofka aad guursanaysid inay sax yihiin inay qalad yihiin. mar waxaa waaye xeer iyo fandhaal ay kala dhaceen ayaad ogaanaysaa. kuwa qofka inuu yahay horta qof shaqeeyo oo awood u leh inuu cunto. asaaska guriga maxaa waaye? asaaska guriga waxaa waaye hanti waay. hanti adig uma baahnid hantidiisa qofkan inaad wax ka samaysid, adiga hanti aad ka samaysid, laakiin hantidiisii waxaa waajib ah inuu adiga kugu asturi karo oo waxaa waaye baahiyahaaga uu ku dabooli karo. waajibka ilaahay saaray uu kaga soo bixi karo. baahiyahaaga maxaa waaye? inaad guri ammaan aad ku noolaad. guri meel aad ku hoynaysid ammaankii ka mid tahay, cuntada aad cunaysid ammaankii ka mid tahay, dharka aad xiranaysid ammaankii dhaqaalaha ayay ka mid tahay. waa inuu awood u leeyahay dhaqaalahaas wiilka aad guursanaysid. wiilow adigana haddaadan awood u lahayn waxaa waaye noloshaada soo dhis, beri ilaahay kula xisaabtama. xaaska aad guursanaysid mas-uuliyadeeda ayaa qaadaysaa. ilaahay hortiis maalinta la taagan yahay asaa kugula xisaabtamaayo. waxaa waaye meeshaanayti hal rooti isla cuneynaa. irsaaqada ilaahay ahaa irsaaqada shaki kuma jiro waa keenaya, laakiin caqliga iyo mandiqa waa inuu shaqeeyo.
adoon awood u lahayn inaad guri furtid gabar islaameed asoo lagoynin. waxaa arkaysaa haddii xaaskaaga ay uur yeelato waqtiga foosho kale inaadan xataa awood aadan u lahayn, haddaadan waxba haynin isbitaal xataa aadan geen karin ood khatar gelinaysid nafteedii iyo nafta caruurtaadii aad khatar gelinaysid. mararka qaar aad adiga sababtooda aad noqonaysid in gabadhii ay isku baxdo, ay isku geeriyooto. ajashu way qoran tahay waa, laakiin ma helin gurmad iyo gacan caafimaad ma helin. maxaana koos gareeyey saygeedii oo adiga ah oo dhaqaalo oo isbitaalku geeyo aan haynin oo guriga ku hay. waxyaabo badan oo waxaa jira oo xaqiiqa ah, laakiin dadku aanay jecleen in la taabto xaqiiqada. mar walba waxaa la run sheeg waa ceeb sheega allah. marka dhaqaalaha qayb ka mid ah oo muhiim ah waayo guriga la dhisaayo. qofka haddaanu awood u lahayn inuu guri furo ama uu guri sameeyo oo mas-uuliyaddii guriga aanu kasoo bixi karin, waxa ugu yar xuquuqdaada waayo. waxa wax weyn maa guriga. bini aadan ahaan waxaa leedahay xaqaaga inaad isturnaatid, inaad guri aad ku hoyatid, in maxay ahayd cuntadaadii iyo aradkaagii maxay ahayd usaygaagii uu awood u leeyahay inuu kafaalo qaado. waxa ugu yar oo xuquuq ah aad ku leedahay warta saygaagii waa inaad baratid gabaree. haddii waxaas aanu awood u lahayn qofkii uu yahay qof aan shaqaynin, aan waxba haynin, oo lagu leeyahay aniga halka xabarooti galaaska biyaha isla qaybsanayna, waxaas waxaa waaye maxaa la dhahaa, waxaas wax oo xaqiiqada ka fog waay. waxaas waxaa marka dareenka uu socdo oo dareenkii keliya uu ku hogaaminayo oo aadan waxba arkeenin ayaa leedahay aniga galaaska biyaha isla qaybsanayna. ilaahay arsaaqada noo fura, ilaahay arsaaqada waa kuu furaya. laakiin mandiqaa jir sooma, mandiq iyo caqli waxaa jiro wax oo shuruud. adduunka wuxuu leeyahay shuruud iyo wuxuu leeyahay qaanuun sharciyaa jiro adduunka. haddaad tiraahid aniga gurigaan ka baxaayo, ilaahay subxaana watacaala arsaaqadeeda samadoo iga soo daadinayo. ilaahay waa awooda, ma dhaheena ma awoodo inuu samada kaaga soo daadiyo adoon bixin, laakiin shuruud ayay leedahay dunida. shuruud iyo qaanuun ayaa jiro oo inaad dhaqaaqdid, inaad raadisid, in aad samaysid jidkii adiga lacagta kuu sameyn lahayd. waa inaad samaysid, maaha inaad dhehaysid aniga ma dukanaayo, ma cibaadaysanaayo, ilaahay haddana jannadu ayaan rabaa inuu igeliyo. haddana ilaahay waa awoodaa subxaana watacaala, laakiin waxaa waay qawaaniina jiro, doorasho ilaahay ku siiso ma jidkaas naarta maraa lagu dhahay, jidkaas jannada mar. ayadoo aan ognahay qof walba markuu uurkoodiis ku jiro in loo qoray shaqi iyo saciid waxa uu yahay loo qoray, laakiin haddana jidkii adag doorashada iskale. marka noloshana saas waay. marka maxaa imaanaya markaa caatifad ku guursatid oo dareen aad ku guursatid, muddo kadib in xiisiya uu dhammaado, muddo kadib maxaa imaanaya gabar ooynaysa imaanaysa. ninkii saano u yeelay, ninkii kanuu u yeelay, kanuu u yeelay. bini aadanka sidiisaba nin ma ahan keliya. bini aadan ahaan waxaa markaa qiimo aad ka bixisid aada u ilaalinaysaa. waxa adiga xataa u fiirso, wax alaabta gurigaaga ku taalo, waxyaaba aad qaaliga kusoo gaday markuu kaa jabo kaleenta dhehaysaa. laakiin wax raqiis aa kusoo gaday waxaas xawl ma joogay aa leedahay. waxaa laga yaabaa kan raqiiska mararka qaar inuu adiga waxtar kuu leeyahay, laakiin aad fiirinaysid qiimaha adiga aad kaa baxay. marka bini aadankana saas waay. macnaheeda maha inaan dhahayo wiilasha guurka halagu adkeeyo halagu qaaliyeeyo, laakiin ugu yaraan xaqaaga iyo xuquuqdaada waa inaad heshid. qof walban wuxuu qiimeynayaa wixii uu hanti kaga baxay. gabadhan waxaa arkaysaa niman badan oo dhahaya qaaliga igu tahay, intaasoo aniga aan u maraay, intaasoo sano ayaan raadinaya jeceelkeeda. markaan raadinaya intaasoo sano aan hadda helay, lagama yaabo inay faraheyga ka baxdo. xaaskiis ay noqoto lagama yaabo oo kuleeyahay inay faraheyga ka baxdo ama aan xumeeyo, lagama yaabo. waayo intaasoo sano ayay igu qaadatay ee ayadan i diidaysay, oo haddana intaasoo hantiyaan ka bixiyey. waxaa qof qaali ayay igu tahay. meesha qofka caqliga aan ku guursanin koobka biyaha isla cabeynaa. mararka qaar waalidkaaga ma iga soo go'daa sheekooyin noocaas anaga aa jiri somaa waagii hore. waalidkaa ma iga soo go'daa heblaayo, haa waa u go'aa, ninkeygaan u go'aa, hebelaan u go'aa, habeen asaan u go'aa, maalinaa u go'aa. waalidka xataa waxaa waay looga go'aay ninki. waayo kadib maxaa imaanaya qofka markuu ogaado inaadan lahayn meel aad u ciirsatid, qof adiga garab ku siinaayo, isla qofkii adiga dartiis aad dunida uga jeesatay oo dadkaagii aad u deerisay ama ay ku deeriyeen, inuu asaga cadow kugu noqdo. waa kii aan caqli lahayn sooma. wayna badan tahay, wax dhacna waayo, wayna dhicaysaa. marka adiga naftaada ilaalinteeda aday waajibkaa saaran tahay. naftaada inaad ilaalisid oo markii aad qaadanaysid go-aamada waaweyn sida guurka oo kale, furiinka oo kaleeto go-aan weyn waayo. waa inaad u fariisid ood caqligaaga aad ku salaysid. kan hadda maanta guurkan ka hadleen, go-aan walba oo weyn shaqaad ka tegaysaa. waa inaad fadhiisatid oo qalinka aad xariiqdid
go-aan walba oo weyn waa inaad u fariisatid ood u fikirtid go-aankan haddii aan qaato aniga maxay kasoo gaaraya, maxay noqon doontaa. waa inaad adiga naftaadii maxay kaaga baahantaha inaad amni amaan aasiisid. ilaahay ka sokow, ilaahay amni amaan leh, adaa waajibkeeda iyo mas-uuliyadeeda iskale. naftaada inaad meel xun geysid ama meel wanaagsan inaad geysid adayna kugu xiran tahay, oo naftaada hadba meesha aad geysid ayay kasoo muuqan doontaa. marka marna ha iloobin irsaaqada ilaahay kuu qori, marna uma seegeysid, laakiin qiimahaaga ha tirin. guur haddaad guursanaysidna xoogaa caqliga boorka ka jaf oo meel ha soo dhigan, caqliga baarbaar. waxaan idiin rajaynayaa dhalinyaro dhammaantiina guur hagaagsan, wiilal iyo gabdhabo, ilaahay subxaana watacaala inuu idin asturo. guurka wax wanaagsan waaye, maasha allah tabaaraka allah. kulligiina waxaa waaye adduun iyo aakhiraba inuu ilaahay nagu asturo, dhalinyaro iyo kuwa waaweynba inuu ilaahayna asturo.